dagaal lagu hoobtay waxbana aan la isku reeban ayaa ka dhacay gobolka Tigray. haatan waxaa la soo warinayaa inuu weli halkaasi ka soconayo. Itoobiya iyo Eritrea ayaa weli sii wada duqeymaha iyo dagaalada tooska ah oo gobolkaasi ay ka geysanayaan. warbixin ayaynu idinkaga haynaa daawadayaal. jabhadda TPLF guulo waaweyn ayay ka sheegatay dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. maxaa ka jira in saraakiil sarsare oo Itoobiyaan iyo Eritrean bay isugu jira lagu dilay dagaalkaasi? warbixin ayaynu idinkaga soo gudbin doonaa saaxiibayaal. beesha caalamku weli isha ayay ka eeganaysaa xasuuqa shacabka Tigray, balse go'aan halis ku ah Abiy Ahmed ayay ku dhawaaqeen madaxda qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka. warbixin ayaynu idinkaga haynaa daawadayaal. qodobadaasi aad waxay nagu soo kordhay intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaa daawan doontaan, balse haddii aad nagu cusub tahay oo markaagii kuugu horreysay ina daawanayso, subscribe inoo saar channelka, sii share garay muuqaalka oo laag saar, sidoo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino. waad ku mahadsan tahay saaxib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba. aynu ku bilowno markan. dagaalka Itoobiya iyo TPLF u dhaxeeya ayaa sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambeysa, waxaana halis sii gelaysa xaaladda dadka ku nool gobolka Tigray oo dagaaladu ay ku dul dhacayaan. saakay aroortii hore ciidamada huwanta ee Eritrea iyo Itoobiya ayaa weerar dhowr jeer ku qaaday fariisimo ay jabhadda TPLF ku lahayd meel u dhow xadka gobolka Tigray uu la wadaago Amxaarada, waxaana halkaasi ka dhacay isla markaana weli ka soconaya mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee dhinacyadu iskaga hor yimaadaan tan iyo markii uu dagaalka Itoobiya uu bilowday sanadkii 2020. warar hordhaca oo aan dagaalka ka helayno ayaa sheegaya in ciidamada TPLF ay dileen 7 sargaal oo Eritrea iyo Itoobiya ka tirsan. afayeen u hadlay TPLF oo lagu magacaabo Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay in ay iska difaaceen ciidamada cadawga oo isgarabsanaya. annaga oo u diyaarsan oo feejigan dhagarta cadawgana ku tashan ayayna soo weerareen saakay aroortii hore, waana iska difaacnay, wax dhib ahna annaga nama soo gaarin waayo waan u diyaarsanayn, ayuu yiri Getachew Reda. isaga oo sii hadlayay waxa uu yiri waxaan gacanta ku haynaa 25 askari oo labada cadow ee nagu soo duulay ka tirsan, sidoo kale 7 sargaal ayaan ka dilnay oo haddaba sawiradooda aad heli kartaan, waana sababta aysan annaga khasaare badan dagaalka inooga soo gaarin, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Getachew Reda oo afayeenka kooxda TPLF. dhinaca kale ma jiraan weli wax wara oo ka soo baxay ciidanka isku dhafka ee Itoobiya iyo Eritrea oo ku aadan sheegashada ciidamada TPLF. dagaalka ayaana weli waxaa la soo warinayaa inuu si aad uga socdo xadka Amxaarada iyo Tigray. Eritrea ayaa ciidamadeeda kaydka u yeertay si ay markaasi uga qayb noqdaan dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya, waxaana dhowr jeer ay idimo kala kulantay wadamada caalamka. sidoo kalena cunaqabateeno xoogan ayaa lagu soo rogay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada markaasi Eritrea. sidoo kale dowladda ayaa markaasi lagu soo rogay cunaqabateeno, waxayna abaabuleysay ciidamo kayd ah oo military ah si ay markaasi u xoojiyaan ciidamadeeda ku sugan xadka ay Itoobiya kala wadaagaan dhinaca gobolka Tigray. ciidamada ammaanka ee dalkaasi Eritrea ayaa meelo badan ka hor istaagayay dadkaasi ay markaasi u hubiyaan in laga reebay qorista ciidamada. koox rag ayaa ooyay xilli ay sagootinayeen ehelada goobjoogayaal ayaa sidaasi sheegay. qaar badan oo ka mid ah dadka markaasi ku nool caasimadda Asmara ayaa khamiistii la siiyay ogeysiis, waxaana markaasi ay u guureen xadka gobolka Tigray ee Itoobiya saacado gudahood si ay ila wareedyo markaasi ay sheegeen. Eritrea waxay haysataa adeeg ciidan oo markaasi qasab looga dhigo dadka oo 10 sano socday, kaasoo si weyn markaasi u dhaleeceeyeen kooxaha xuquuqul insaanka. laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in dadaaladii ugu dambeeyay abaabulka ay la xiriidho dagaalkii sokeeye ee ka dhacay waqooyiga Itoobiya, colaadaas oo dhawaan markaasi dib u soo cusboonaatay kadib 5 bilood oo xabad joojin ahayd. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ogeysiisyada abaabulka markaasi laga qaybiyay khamiistii caasimadda Asmara, magaalada labaad ee ugu weyn Keren, magaalada markaasi galbeedka ku taala ee Tisaaniya, iyo deegaano kale oo ku yaala dalkaasi Eritrea. waxa ay ugu baaqeen ciidamada kaydka ah in ay soo sheegaan madaxdooda, iyaga oo sidoo kale kula taliyay in ay wataan agabkooda oo ay ka mid yihiin bustayaal iyo xafiisyada haamaha markaasi biyaha. hooyooyin, caruur iyo xaasas ayaa ooyay xilli ay sagootinayeen wiilashooda, aabbayaashood, walaalahood iyo raggooda, sida ay ila wareedyo halkaasi ku sugnaa ay noo xaqiijiyeen.
dadka aan dheg jalaq u siinin baaqaasi ayaa waxa ay markaasi ka digayeen cawaaqib xumada ka dhalan karta, balse waxaa la sheegay in qaarkood ay ka dhigo adeegeen in ay markaasi qayb ka noqdaan ciidamada Eritrea ee loo soo diray gobolka Tigray si ay qayb uga noqdaan dagaalka u dhaxeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea. Eritrea ayaa ka barbar dagaalameysay ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay Tigray dabayaaqadii 2020. boqolaal kun ayaa lagu dilay dagaalka, halka milyan ay ku barakaceen, qaar kale oo badanna ay weli markaasi quus ka taagan yihiin cunto la'aan sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka. hay'ado dhowr ah oo u dooda xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyay askarta Eritrea inay gaboodfallo xoogan ka geysteen gudaha Itoobiya, balse sheegashadaasi waxaa beeniyay madaxda ugu sarreysa ee dowladda Eritrea. Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay ciidamada difaaca Eritrea iyo xisbiga talada haya ee BFDJ, taasoo jawaab u ah ku lug lahaanshaha Eritrea ee colaadda dalka Itoobiya. madaxweyne Isaias Afwerki ayaa soo xukumay Eritrea tan iyo markii uu wadanku ka go'ay Itoobiya 1993, balse intii u dhaxaysay sanadihii 1998 ilaa 2000 labada wadan waxa ay dagaal ba'an oo khasaare badan markaasi geystay ku dhex maray dhul xuduudeed lagu muransanaa. ismariwaa 20 sano ah oo military ayaa socday ilaa Abiy Ahmed uu noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya 2018. heshiiska nabadda wuxuu Master Abiy markaasi ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize sanad kadib markii xilkaasi loo dhaariyay. labada hogaamiye ayaa markii dambe ku midoobay ururka Tigray People's Liberation Front oo loo soo gaabiyo TPLF oo markaasi ah cadowga guud, kaas oo ay culimadu ka talinayeen Itoobiya markaasi 30 sanadood ka hor inta aanu Master Abiy xukunka qabanin. dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay madaxda TPLF ee ka talisa waqooyiga gobolka Tigray in ay maleegayaan qalqal gelinta dalka, halka Master Isaias Afwerki uu arko cadowga markaasi gaarka ah ee ay leedahay Eritrea. Eritrea waa go'doon diblomaasiyadeed, waana dowlad markaasi aad u hubaysan oo maamusha ku dhawaad dhammaan dhinacyada nolosha dadka. caburintaasi ayaa keentay in dhalinyaro badan ay dalka isaga cararaan inta uu xukunka hayo Master Isaias Afwerki. marka laga reebo la dagaalanka Itoobiya, Eritrea waxay isku aragtay in dagaal kula jirto dhammaan dalalka diriska la sida Yemen 1995 ay la dagaalameen, Suudaan waxay la dagaalameen 1996 iyo Djibouti oo dagaal culus u dhex maray iyada iyo Eritrea 2008. dagaalada haatan sida awoodda markaasi uga soconaya waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray ayaana sii xoogaysanaya kadib markii jabhadda TPLF ay ku dhawaaqeen in ay doonayaan wada hadal iyo wada xaajood in lagu dhameeyo dagaalka 3 sano markaasi ku sii dhawaanaya ee ka socda gobolka Tigray si loo badbaadiyo dadka rayidka ay halkaasi ku dhibaataysan oo cunaqabateynta dhinac walba ah ee dowladda Itoobiya markaasi saartay. waan arki doonaa daawadayaal halka ay ku dambeeyaan wararka iyo warbixinadeena soo aadan ayaadna ku daawan doontaan wixii war ee ku soo kordha dagaalka haatan ka soconaya xadka Amxaarada iyo Tigray oo markaasi u dhaxeeya ciidamada TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya oo garab ka helaya ciidamada dowladda Eritrea. balse haddii aad nagu cusub tahay oo marka ay kuugu horeysay na daawatay, subscribe noo saar channelka, sii share garay muuqaalka u laag saar, sidoo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha inuu halkan soo gelin. waad ku mahadsan tahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba. inta aan warkankiisa kale aan ku kulmi doonana nabadgelyo.